muwaadin walaalow walaashayay maxkamada dalku leeyahay. xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka ayaa soo saaray digniin culus oo lagu hadlayo cid kasta oo ku kacda falalka hor imaanaya shuruucda dalka iyadoo si gaar ah loogu digay faafinta warar been abuur ah caay iyo aflagaado. waxaa la sheegay in gacanta lagu hayo gal dacwado ku saabsan falalka noocan ah oo bulshada lagu kicinayo. dowladda ayaa weli u xiran nabadoon xaadooli oo loo haysto hadallo lagu sheegay kuwa ka dhan ah madaxweyne xaasheekh. xiritaankiisii nabadoonka ayaa dhalisay dood iyo tuhun badan, waxaana arrintaani si isku mid ah u cambaariyey madaxda Soomaaliyeed ee hore sida madaxweynayaashii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre iyo Maxamed Xuseen Roble. xafiiska xeraalyaha guud ayaa qoraalkiisii ku adkeeyey in waajibaadkiisii ku aadanaa ilaalinta sharciga, kala dambeynta iyo badqabka bulshada uu yahay mid aan laga leexan doonin, islamarkaana uu digniin adag u dirayo cid kasta oo ku xadgudubta shuruucda dalka iyo sumcadda shacabka. tallaabadani waxay timid maalmo kadib markii midowga samata bixinta ay kulan la yeesheen dad la sheegay in ay dowladda ka saartay dhulkii ay deganayeen, kuwaasoo qaarkood si carar leh ugu muujiyey hadallo dowladdu u aragtay kuwo khatar ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. waxaa la leeyahay qoryaha laga aruuriyo. anigu waxaan qabaa in dalka qoryaha aan laga aruurin, qoryaha loo badiyo. haddiiba cadaaladu aysan jirin, waxaan qabaa in nin walba oo qori soo gato. dowladdu baldhaweyta markii meeshan ay tagto 7 wiil oo dhan 6 saacadood haysatay, wax tabarhu ay leeyihiin male, keliya inay dadka dhulka ku qaadaan ku noolaadaan bas ay rabaan. wax kale oo hadafa oo ujeeda ma jiraan. aniga dhulkayga wuxuu ku yaallaa Taleex, waana anaana u taagan, cid dhisi karta iyo cid taaba kartaana ma jirto. maanta laga bilaabo waxa way guur siyaasadeed iyo mid military midna inuusan gaaraynin waan hubaa. waayo dadka masaakiinta ilaahay ma dayacayo, habaarkoodana cid lama dhacayo. marka waxaan leeyahay madaxweynayaasha iyo waxa way badbaadada qaran waxa leeyahay waad mahadsantihiin. warka hortaga oo ku mudaharaada oo meesha istaaga ku mudaharaada oo dulmiga diida oo gudaha ku mudaharaada oo dibadda ku mudaharaada. waradaan suuq la dhaafin oo masaajid la dhaafin oo MCH la dhaafin oo jaamacad la dhaafin oo xarun la dhaafin. waa dhibaato intee loo socdaa. ilaahu isbahaysiga bixiye joogtaa oo asagana yaa lagu imaanin. waa maasantiin, waa in garab taagannahay, garabkiinana waa nagu tashanaysiin, waan isku tashanaynaa. wasalaamu calaykum. qoraalka ka soo baxay xafiiska xeraalyaha guud ayaa lagu yiri xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka waxa uu gacanta ku hayaa gal dacwadeedo la xiriira cayda ama aflagaadada, sumcad dilka iyo isku dirka bulshada, faafinta sawirro iyo muuqaalo anshaxumo ah, faafinta been abuur iyo inta bulshada dhexdeeda, iyadoo ay jiraan dad loo maxkamadeeyey iyo kuwa hadda ay socdaan baarista kiisaskooda. kiisaskan ayaa muujinaya sida falalka noocaani ay khatar ugu yihiin xasiloonida bulshada, sumcadda dadka, amniga iyo kalsoonida guud ee bulshada. xafiisku isaga oo gudanaya waajibaadkiisii ku aadan ilaalinta sharciga, kala dambeynta iyo badqabka bulshada, waxa uu digniin adag u dirayaa cid kasta oo ku kacda falalka ka soo horjeeda shuruucda dalka iyo sumcadda shacabka, isaga oo ku wargelinaya in tallaabo sharci ah oo adag laga qaadi doono kuwa lagu helo si loo ilaaliyo sharafka, sumcadda iyo nabadgelyada bulshada Soomaaliyeed. xafiiska xeraalyaha guud ee qaranku waxa uu adkeenayaa in ilaalinta sharciga, ka hortagga dambiyada iyo difaaca sumcadda bulshada ay yihiin tiirarka u muhiimsan ee xaqiijinaya nabad waarta iyo horumar bulsho oo joogto ah. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah, ku hadal iyo IPTV ula socda receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah, ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah.